bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa maalinimo sabti ah, taariikhdanu ay ku beegan tahay 14 bisha 3 sanada 2020. qodobada xiisaha badan ee aad ku daawan doontaan xogtan taasoon waxaa ka mid noqon doona wasiir cawad uu shaaciyey sida ay u arkaan farmaajo iyo kheyr shirka garoobe. dowladda Soomaaliya oo xadgudub ku eedeysay laba wadan dalbatana in laga qabto. qisadii darawalkii ka badbaaday weerar ay al-shabaab ku beegsatay. cabdiweli gaas oo ku biiray mucaaradka kana walwalsan doorashada dalka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad xogta daasoon ku daawan doontaan. haddii ay tahay daawade markii kugu horeysay fadlan subscribe inoo saar lana sii wadaag asxaabtaada adigoona usii sheergareynaya. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. aan ku bilaabnay. cawad uu shaaciyey sida farmaajo iyo kheyr ay u arkaan shirka garoobe. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay mowqifka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyr ee shirka wadatashiga Puntland ee ka furmaya 15 Maaj. cawad oo hogaaminaya wasiiro iyo xildhibaano kasoo jeeda Puntland ayaa shalay gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland si ay uga qayb galaan shirkaasi. isaga oo hadlayay kadib markii uu gaaray Garoowe ayaa Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyr aysan wax dhibaato ah ku qabin shirkaas, isla markaana ay bogaadin u soo direen shacabka Puntland ayna guul u rajeynayaan shirka wadatashiga sida uu yiri. wasiirka ayaa intaasi ku daray inay Puntland martiqaaday wakiilada u matalaya dowladda federaalka Soomaaliya si ay shirkaasi kaalin uga qaataan. si kastaba waxaa xusid mudan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dini uu ku baaqay shirka kadib markii uu aad uga carooday ficilada madaxda dowladda dhexe. shirka Garoowe ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aano ka dhan ah dowladda dhexe ee Soomaaliya oo madaxweyne Dini uu horay ugu eedeeyay carqaladeyn iyo dagaalo ka dhan ah maamul goboleedyada dalka. go-aanada la filayo inay kasoo baxaan shirka ayaa waxaa ka mid ah in Puntland qaadacdo doorashooyinka dalka lagu qabanayo maadaama ay hore uga hortamid sharciga doorashooyinka iyo inay si buuxda xiriirka ugu jirto dowladda dhexe. dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in suurtagal tahay in joogitaanka wafdiga wasiir Cawad ee Garoowe ay ugu faa'iideystaan inay isku soo dhaweeyaan madaxweyne Dini iyo madaxda dowladda federaalka. dowladda federaalka Soomaaliya oo xadgudub ku eedeysay laba wadan dalbatayna in laga qabto. wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa digniin u diray laba wadan oo maraakiibtooda ay si sharci darro ah uga kalluumeysanayaan biyaha Soomaaliya. Bidhaan ayaa sheegay in maraakiibta laga leeyahay wadamada Iran iyo Pakistan ay daldalanayaan kheyraadka badda Soomaaliya, isagoona amray inay xeebaha Soomaaliya uga baxaan si degdeg ah. wasiirka ayaa sidoo kale dalbaday inay gacan siiso cid kasta oo dowladda federaalka ka caawin karta soo qabqabashada maraakiibta shisheeye ee xaalufinaya xeebaha dalkeena. waan uga digayaa maraakiibtaasi inay si degdeg ah wadanka uga baxaan. wixii awooda ee aan saari karo iyo soo qabqabashadooda waan ka shaqeynayaa. waxaan u baahannahay in cid kasta oo naga caawin karta inay naga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaasi, ayuu yiri wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in maraakiibtaasi ay gaarayaan ilaa 43 markab, isla markaana ay badankood ku jiraan xeebaha Galmudug iyo Puntland. ugu dambeyn wasiirka ayaa tilmaamay in maraakiibtaasi ay sababi karaan in mar kale ay dib u soo laabtaan kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ee waayadii dambe laga adkaaday. qisadii darawalkii ka badbaaday weerar ay al-shabaab ku beegsatay. laba qof ayaa la dilay, mid kalena waa la la'yahay kadib markii al-shabaab ay fiidnimadii Jimcaha jidka u galeen bas ku socdaaliyay Mandheera, magaalo ku dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. darawalka baska oo wareysi gaara siiyey VOA-da ayaa sawir guud ka bixiyay qaabka ay wax u dhaceen habeenkaas. Anas Cabdinuur oo 7 sano ka shaqeynaya wadada Mandheera iyo Nairobi ayaa waday rakaab tiradoodu gaaraysay 59 ruux xilli uu gabagaba ahaa safarkooda. abaara 5:15 maalinta Arbacada wuxuu arkay gaari lagu jiray wadadii ay ku socdeen.
rasaas ayaan maqlay anigoo isku dayaya inaan yareeyo xawaaraha, kadib waxaana joojiyey gaari kale, ayuu hadalkiisa ku daray. Tirada dagaalamayaasha fuliyey weerarkaas waxay ahaayeen 30 ruux sida laga soo xigtay Cabdi oo xusay in rakaabka laga daadiyey. Markii ayna soo gaareen waxay qof walba u sheegeen inuu ka soo dogo gaariga. Aniga way garaaceen, waxayna i weydiiyeen su'aalo. Imise rakaab oo aan deegaanka u dhalan baa sidaa. Waxaan u sheegay inaysan jirin. Mid ayay u hubiyeen, waxayna sheegeen inay raadinayaan dadyooga aan muslimka ahayn, ayuu hadalkiisa daaha ka rogay. Isagoo sheegay in go'doonkaas ku jireen 1 saac, wuxuuna aaminsan yahay in dagaalamayaasha ay muddo badan ku sugnaayeen halkaas, isla markaana ay qarxiyeen wadada kana wateen gaari kale. Meydka 2 ruux oo laga shakisan yahay inay la socdeen gaariga dableyda ee wadada lagu jiray walow aan la cadeyn qaabka. Baabuurka Cabdinuur ma jirto cid laga dilay, si la mid ah dagaalamayaasha way ka wacdeen gaariga maadaama uusan la socon bartilmaameedkooda oo ahaa dadka aan muslimka ahayn. Mandheera ayaa waxay leedahay waayo aragnimo ku filan oo weerarada Al-Shabaab ah. 5 sano ka hor weerarkii jaamacadda degmada Mandheera waxaa lagu qaarijiyey 14 ruux oo dhammaantood ahaa dad shacab ah. Cabdiweli Gaas oo ku biiray mucaaradka kana walwalsan doorashada dalka. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa walaac xoogan ka muujiyey doorashooyinka lagu wado inay dalka ka qabsoomaan sanadka ina soo aadan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ka walwalsan in doorashooyinka dib ugu dhacaan xilligii loogu talagalay, xilli uu sheegay in waqti yar uu ka harsan yahay xilliga loogu talagalay in doorashooyinka lagu qabto. Anigu waan jeclaan lahaa wadanka in isbedel yimaado oo doorashada ka dhacdo 2021, laakiin ifafaalihii doorashada aniga ahaan iima muuqda. Runtii doorashada waqti yar baa ka haray, laakiin ifafaalihii iima muuqdo, ayuu yiri Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynihii hore ee Puntland. Isagoo la hadlayay mid ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, ayuu tilmaamay inuu jeclaan lahaa in dowladda ay dejiso qariirad suurtagelin karta in doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigii loogu talagalay. Waan jeclaan lahaa dowladda inay jeexdo qad uu ku hirgeli karo doorashada waqtigeedii. Soomaaliya hadda waxyaabaha lagu soo caanamaalay waxaa ka mid ah doorasho waqtigeedii ku dhacda, qofkaas markaas dadku ay doortaan isbedelna saas uu ku yimaado. Marka nidaamkaasi la isku raacay ee wanaagga ah, isbedelka iyo dimuqraadiyadda ah uu sidiisa u socdo ayaa wanaagsan, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Puntland. Cabdiweli Gaas ayaa dowladda federaalka kula taliyay inay qaado tillaabooyinka ugu habboon ee suurtagelin kara in doorashadu noqoto mid xor iyo xalaal ah, kana fogaato wax kasta oo mugdi gelin kara daahfurnaanta doorashada. Waxaan kula talin lahaa dowladda inay qaado tillaabooyinkii ku habboonaa sidii ay u dhici lahayd doorasho xor oo xalaal ah oo inaba ha lahaatee wax shaki iyo wax ku shubasho ah aysan ku jirin. In la sameeyo ayaan aad iyo aad ku talin siinayaa, laakiin hadda ifafaalaheedii annaga nooma muuqda runtii, ayuu yiri Cabdiweli Gaas. Mar wax laga weydiiyey inqilaafka Puntland iyo Jubbaland kala dhexeeyo dowladda federaalka, ayuu sheegay in doorashooyinka qaranka ay cid waliba saameyn ku yeelan doonto maadaama la rabo inay dalka oo idil ka qabsoomto. Waxa uu intaasi ku daray in xildhibaanadu ay tahay in laga soo doorto maamul goboleedyada, markaasi kadibna ay doortaan madaxweynaha qaranka. walaaca Cabdiweli Gaas uu ka muujiyey doorashooyinka qaranka ee lagu wado in sanadka soo socda ka qabsoomaan dalka ayaa xoojinaya walaacii ay hore u muujinayeen siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka oo madaxda dowladda federaalka ku eedeeyay inay muddo kororsi ay qorsheynayaan.